السلام عليكم أصحاب تقاليد أي كحرن channel كنا إبراهيم بريقو كسر دوا ديتا مركي كوغوريس channel كا سبسكرايب نوصار فيديو جانا نو لايك ري أصحاب تقاليد عاو حيدي ونا sheekadeenana waxay ku saabsan tahay sidatan marwo ayaa waxay u karin jirtay reerkeeda rooti waxay ku dari jirtay xabad rooti ah oo dheeraad ah sidoo uu qaato qof miskiin ah oo meesha soo mara waxayna gari jirtay qaanada nin ayaa meesha soo mari jiray subax walba geedo qorow ah asagoo shaqadiisa u socda ayuu xabad rootigana qaanada kala sii bixi jiray asagoo hoos u hadlaya ayuu wuxuu dhihi jiray xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogi wanaaga aad samaysana adiga ayuu ku soo laaban sidaa ayaa dhici jirtay maalin kasta ninkii geedo qorowga ahaana sidii ayuu isaga qaadan jiray xabadiisa rootiga ah haweeneydii ayaa maalintii dambe ka carootay waxayna isweydiisay maxay tahay ninkan maalin xataa mahadsanid kaliya ku lahayn maalintii dambe ayay waxay go'aansatay xabadii rootiga ahayd inay ugu darto sun markay qaanada gelin maagtay ayay gacanta ka jaraysay markay gacanta ka jaraysay ayay iska daysay oo dabka ku tuurtay markaas ayay xabad kala soo qaadatay oo qaanadii u gelisay isagana isla sidii ayuu subaxdii soo maray rootigii asagoo hadalkiisii halhayska leh xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogi wanaaga aad samaysana adiga ayuu ku soo laaban haweeneydu waxa ka maqnaa wiil yar oo ay dhashay iyada oo ay aad u jeclayd muddo dheerna ay raadinaysay kadib habeenkii markay seexato subaxdii ayaa waxa irida u soo garaacay qof aad iyo aad u duruufaysan bas hadda irida ka furtay waa wiilkeedii way ku baraarugtay markaas wuxuu yiri hooyo waxaa mucjiso kula noqotay inaan saaka halkaan taaganahay waxaan ka soo lugayay meel aad u dheer waxaanay soo qabatay gaajo aad u fara badan waxaanan ku sigtay inaan dhinto waxaa igu horyimid nin wuxuuna i siiyey xabad rooti ah wuxuuna igu yiri xabadan rootiga ayaa subax walba ka soo qaataa meel maanta cun adiga ayaa iga gaajo badani xabadii rootigeed ayaan soo cunay maamadii ayaa waxay garawsatay xabadii rootigeed hadday sunta ku dari lahayd inuu wiilkeedu cuni lahaa markaas ayay garawsatay hadalkiisii uu lahaa xumaan haddaad samayso adiga ayay kula joogin wanaag haddaad samaysana adiga ayuu kuu soo laaban waxaa hubaala inaad heli doonto wixii maanta aad beerato berri mirahooda asxaabta qaaliga ah waa xaqiiqo sheekadaas qof walba wuxuu sameeyay wanaagi uu samaysto ayuu berri guranayaa miraheeda xumaanta uu samaystana berri ayuu guranayaa miraheeda haddaa maanta aad xumaan samayso ama qof masaakiina aad xumayso ama aad dhibaatayso berri ayaa miraheeda guranaysaa bilmatalan hadda ilmo yar haddaa dhib ka gasho dhibka ilmahaas ka gashay berri ilmahaaga ayuu berri kasoo baxayaa haddaa wanaajiso ilmahaas yarka ahna berri ilmahaas wanaagaas ayuu uga soo baxayaa wanaagaas ilmahaas yarka u samaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku abaalgudaya oo wuxuu kasoo baxayaa ilmahaaga haddaa maanta qof bini aadan ah xumaysana berri ayuu wuxuu kasoo baxayaa ilmahaaga dadka ilmahooda celi waaye ilmaha ay ka halaabeen faasiqiin ay ka noqdeen marka horeysa wanaag soo samaysan wanaag hadday soo samaysan lahaayeen maysa ka xumaadeen ilmahooda ilmaha hadii marka hore cuqubada laga ilaaliyo oo dadka masaakiinta la iska ilaaliyo cuqubada oo xaraamta laga ilaaliyo oo xalaal lagu quudiyo ilmuhu marna ma halaabaan laakiin haddaa jid qaldan u isticmaasho marna cunuga adiga dhashay wanaag ha ka sugin wax walbo aragtana ha ku diimin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cid u xumaanta u qoray iyada kaligeed ma jirto cid oo ayada kaligeed inay xumaato ama ay wax ka qaldamaan u qoray ma jirto adiga berri way kugu dhici kartaa asxaabta qaaliga intaas caawa muuqaalkayga ku egyahay videoga like gareeya ii share gareeya sidaan u helo asxaab adinkoo kaleeto u qaalisan aada u mahadsantiin garab istaagiina sidaa noo garab istaageen adinka ayaana wax idinku nahay